munaasabadan lagu dhagax dhigay dayactirka iyo dhismaha lagu sameeyay guriga laga dhawaaqay goonisitaaga Soomaaliland 18 May 1999 oo maanta oo kale laga joogo 25 sano ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland wasiirka ka tirsan xukuumadda gudoomiyaha gobolka Togdheer maayarka Burco iyo xubno kale oo ka tirsan hormuudka gobolka Togdheer waxaana dhagax dhigaasi ka hor uu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland soo indheeyay dhismaha gurigaasi gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo iyo maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdi Muraad oo labaduba ka hadlay halkaasi ayaa ku dheeraaday taariikhda goobtan iyo muhiimadda ay u leedahay Soomaaliland meesha waxaan ugu talagalay madxaf weyn oo taariikhdii taalo oo ah in aanu dhigno madaxweyne kasta waqtigiisii taariikhdiina wala dhigi doona jiilkiisa oo akhriyaan waxaan doonaynaa iskuulada soo booqdaan inay dadka Burco inay taariikh badan bay leedahay Burco dadka u yeedhay madaxweyne ayaanu doonaynaa wasiirka hawlaha guud ee guriyeynta Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan wasiirka warshadaha Shucayb Maxamed Muuse wasiir ku-xigeenka warfaafinta Shukri Xariir saraakiil ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xubno kale oo ka hadlay halkaasi ayaa dhamaantoodba ku amaanay gudoomiyaha gobolka Togdheer dhismaha gurigan iyagoo Xuseen uu kamid yahay goobaha taariikhda weyn ku leh Soomaaliland isla markaasina u baahan in la xuso oo la dayactiro 3 bilood ka hor ayuu madaxweynuhu ballan qaaday in goobta la dhiso barasaabka hawsha loo xil saaray barasaabkuna hawshiisii uu ka soo baxay waa inaga maanta isugu wada nimi alxamdulillah madaxweyne ku-xigeenkii qarankuna inoo yimid inoo dhagax dhigayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayli ayaa isaguna gabagabadii munaasabadaasi yiri waxa dhamaanteen bayna farxad runtii anina farxad gaar ay tahay inaan maanta halkan dhagax dhigno xusuus mudan in la xuso maalin bay inta talinaysa waxa la nooga baahay dhamaanteen sidaynu taariikhda adkeyn lahayn ee u sii jir lahayd ba dhamaanteen ummadda reer Soomaaliland looga baahan yahay ee taariikhdaas nooga lunteen ee ugu dhamaan lahayd guul iyo gobonimo iyo waxaynu higsanayna ictiraafkeenu helno marka aad iyo aad baad mahadsantiin intii ay socotay munaasabadaas waxa halkaas shahaado sharaf uu madaxweyne ku-xigeenku ku gudoonsiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo isagoo ku tilmaamay inuu yahay shakhsi dib u soo nooleynaya taariikhda Soomaaliland waxaana uu xusay in calankii habeenkii xalay ahaa la saaray xarunta madaxtooyada Burco inuu yahay mid wax weyn ka taraya taariikhda Soomaaliland waxaana intii goobtaas lagu sugnaa dadweynuhu isku raaceen in magaca gudoomiye Qabo loo bedelo Qabyatire Maxamed Kuraase Home Cable TV Burco.